xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland oo horkacayo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa xuduudda wajaale ee dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo socdaal ku yimiday dalka Somaliland ugu horeyntii waxa socdaalka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ka waramay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa jamhuuriyadda Somaliland oo aan hadda joognaa magaalada wajaale bariijka xadka labada dawladood ee Itoobiya dawlad deegaanka Soomaaliyeed ugu soo sokayso iyo dawladda Somaliland waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa annagoo ka kooban wafdi dawladda Somaliland ka socda oo golaha wasiirada ka socda wajaale iyo mas'uuliyiin kaleba madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Cagjar naanaysta hadii Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdiga uu hogaaminayo ka socda dawlad deegaanka Soomaaliyeed aad baan ugu soo dhaweynaynaa ayagana waa dalkoodii hooyo annaka dalkayga hooyo labada dal aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweyne soo dhawaada qariib bateedii dalkiinii baa timaadeen si rasmi ah idinku soo dhaweynaynaa maanta jamhuuriyadda Somaliland aad waa mahadsantiin madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in socdaalkan uu ku yimid Somaliland oo la xidhiidho sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada iyo iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiir Maxamed oo ugu soo dhaweeyay Maxamed Kaahin oo halkan ugu soo dhaweeyay waxaan u soconaa inaan mas'uuliyiinta iyo madaxda Somaliland kala wada hadallo arrimaha iskaashiga guud dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dhanka isdhexgalka bulshada sidaad la socotaan isbedelkii kadib isbedel balaaran isbedelka ka dhacay deegaanka Soomaalida kadib isbedel balaaran baa ka jira dhinaca iyo dadku horeba ay walaalo waayeen haddana isbedel badan baa ka jira dhinaca isdhexgalka iyo dhinaca xiriirkaba marka Somaliland oo ah badan walaalanahay dawlad aan jecelnahay inaan xaaladaha guud ee soo kordhay ee geeska iyo saameynta inagu yeelan karaan iyo qaabkii la isaga kaashan lahaa inay saameyn xun inagu yeelan wixii wanaagana loo sii adkeyn lahaa ayaan u soconnaa mar kale aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka soo dhaweynta wixii kale inta dheer marka aan shirka dhameysano hadii la yiraahdo la wadaagi doonaa mahadsantiin waa Jaafar Caawil Herari telefishinka Sahan degmada Wajaale ee gobolka Gabiley